wiil dhalinyaro ah ayaa lagu soo waramayaa in laysanka ama gaadiid wadista laga kansalay lagana qaaday oo lagala wareegay gaarigiisii. Arrintan ayaa ka dhacday deegaanada Rogaland ee dalka Norway kadib markii wiilkan dhalinyarada ah la qabtay isaga oo gaariga ku wadaya xawaare aad u sareeya oo gaarsiisan ilaa 165 kiiloomitir saacadii aag loogu talagalay ama wada loogu talagalay in saacadii lagu wado ilaa 80 kiiloomitir. Arrintan ayaa fajicisay iyo amaka ku noqotay booliska, waxaana lagu soo waramayaa in ninkan dhalinyarada ah ay booliska si degdeg ah ku qabteen gaariga ay kala wareegeen iyadoo laga kansalay laysankii uu gaariga ku wadayay. Taliyaha howlgallada booliska wadooyinka Steinar Knudsen ayaa isagu ku waramayo in ilaalada wadada ee booliska ay xawaaraha ku qiyaasayaan ilaa 200 kiiloomitir saacadii, taa oo uu sheegay in xad walba oo macquul ah ay dhaafsiisanayd. Waxa uuna taliye Steinar sheegay in wiilkan dhalinyarada ah laga qaaday oo laga kansal gareeyay laysankiisa darawalnimada, sidoo kalena gaariga goobta lagu xiray maadaama uu sheegay in gaariga lagu arkay cillado, sidoo kalena taayirada uu gaariga ku socday ay ahaayeen kuwo duugoobay. Wuxuuna sheegay in booliska gaariga ay goobta ka kaxeeyeen oo ay la wareegeen iyadoo wiilkan dhalinyarada ahna laysankii gaadiid wadista goobta looga kansalay. Arrintan ayaa dad badan waxa ay ku noqotay layaab iyo fajiciso maadaama wada loogu talagalay saacadii in lagu socdo 80 kiiloomitir uu wiilkan dhalinyarada ku waday gaariga in ka badan 200 kiiloomitir saacadii, weliba taayirada gaariga oo ahaa kuwa duug iyo bolol ah, taasoo iyaduna cillad kale oo xoogan geysan kartay. Waxa ayna boolisku intaa ku dareen in cillad kale oo gaariga xagga matoorka ahna ay jirtay, kuwaasoo marka la isku geeyo geysan karay dhibaato xoogan, balse lagu guuleystay inta uusan dhibka xooga iyo baaxadda badan wiilkan dhalinyarada ah geysan in la qabto oo gaariga laga joojiyo. Halka warka kiisa ugu doorkaroon idinkaga imaanayo waa Somali Voice in Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway, waxaana idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.